الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa noo soo gabagaboway safarkii aan ku nimid magaalada Beledweyne runtii safar guuleed wanaagsan oo ahaa sida aan horeyba idinku sheegnay safarkan waxay ahayday inaan dadka deegaanka iyo xaaladaha deegaanka jiran aan xogogaal u noqono dadka deegaankana aan soo dhageysano duruufahooda iyo shu'uuntooda gaarka ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay safarkaani waxaan dhageysanay dadka Soomaaliyeed ee deegaankan ku nool magaalada Beledweyne iyo duruufaha ay ku nool yihiinba iyo waxyaabaha maxuu ahaay caqabadaha haysta iyo wanaaga iyo guulaha ay gaareen intaba waa ka soo dhageysanay talooyinkooda guud ahaan dalka Soomaaliya iyo maxaan ku yiraahday ra'yiga ay ka qabaan dawladnimada iyo sida ay mustaqbalka u arkaan waa soo dhageysanay waxyaabo badan oo aan soo weydiinay su'aalaha way nooga jawaabeen su'aalo badan ayagu ay qabeen oo ama ku saabsan dawladnimada ama ku saabsan mustaqbalka iyo sida ay wax noqonayaan ama ku saabsan wixii hore la soo maray iyo muxuu waaye aragnimadii laga kasbaday intaba waa ka wada sheekaysanay runtii waxayna ahayd safar guuleed odayaasha dhaqanka duubabka ugaas xasan ugaas khaliif oo aan aad iyo aad waqti dheer isla qaadanayna sidoo kale isaguna waan aad iyo aad ayaan uga sheekaysanay deegaanka iyo amuurihiisa iyo duruufihiisa iyo mustaqbalka waxa la rabo sida ay dadku dareenkooda sida uu yahay u arkaan in mustaqbalka muxuu ahaay wax noqdaan sida ay jeclaan lahaayeen iyo duruufaha gaarka ay hadda ku sugan yihiin iyo guulaha ay gaareen iyo waxa u qabsoomay intaba waa ka soo dhageysanay runtii wax aad iyo aad loogu farxo ay ahayday marka guul markale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u mahad celiyo dadweynaha Beledweyne degan guud ahaantiis waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka halkan igu soo dhaweeyay ila kulmay warbixinadana siiyay annagana dhageystay waa u mahad celinaynaa qaybaha kala duwan ee ururada bulshada aan la kulanay dhalinyarada haweenka lahaay ayaguna sidoo kale waa u mahad celinaynaa iyo soo dhaweyntii u fiicneed aan kala kulanay sidoo kale ugaas xasan oo aan gurigiisa ku booqday asna igu soo booqday guriga aan deganaay martida aan ku ahaa asna waa u mahad celinayaa runtii aad iyo aad ayaa talooyinkiisa iyo waanooyinkiisa ay u ahaayeen kuwa waxtar ah ra'yigiisana uu caddaa ku saabsan Soomaaliya iyo wanaaga deegaanka iyo dadka iyo dawladnimada intaba markaa ugaaskana waa u mahad celinaynaa guud ahaan reer Hiiraan oo dhan guud ahaan dhammaantood intii markaa fursad aan u helno la kulanay iyo intaanan fursad isu helin oo kulminba intaba waa u mahad celinaynaa dhammaan waxaan rabaa dadka qurba joogta ee deegaankan ka tirsan in ay deegaankooda ka warqabaan arrimaha bulshada caafimaadka tacliinta waxyaabaha mujtamacu u baahan yahay inay qayb ka qaataan dabcan dawladda bas aan ugu hadlayno dawladdeenu waa dawlad muxuu ahaay heer awoodaheedu ay xadidan yihiin duruufaha jira dalka ka jira awgiis marka in dadka laga warqabo oo gargaar iyo kaalmo iyo garab istaagid intaba la siiyo waan kula dardaarmaynaa dadka deegaankan gobolka Hiiraan u dhashay ama dawlad goboleedka Hirshabeelle ka tirsan ee dibadda ku nool iyo kuwooda waxa haystay ganacsatada ama xoolo qabeenka ah intaba in ay deegaanka iyo dadka ka warqabaan waa u dardaarmaynaa waana warbixinaynaa guud ahaan xaaladda kale ee deegaanka waa fiican tahay cadawgii nabadiidkan waa iska joogaa meel walba oo bartamaha koonfurta Soomaaliya dabcan ka tirsan laakiin deegaankan aad iyo aad ayaa loo xakameeyay magaalada Beledweyne magaalo aad iyo aad nabad u ah degan dhaqaalaheedu aad iyo aad u soo kabanayo fiican ganacsigu fiican yahay dadku ay niyadooda iyo moraalkooda aad u fiican yihiin waaye meeshaas inay ka sii wadaan oo ay horumarka sii xoojiyaan ayaan kula dardaaranay kuna sii dardaarmaynaa aad iyo aad ayaan markale ugu mahad celinaynaa saxaafadda nala joogtay muddada la soo dhaafo dhanna aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waa salaamatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu